aniga caruurteeda ay baahan walaal magacaaga سعدية عند خليف جامع saacadi xaybsan قال كعين dabcan safaaradda u socotay inaad fiisa ka qaadato fiisa noocay rabtay عافمات ilaa imisa joogta halkan halkan waxaan joogaa 2 bilood iyo bar haye bal waa sharaxaad nooga bixi ilaa hadda maxaa ku qabsoomay ilaa hadda waxa ii qabsoomay waan galay safaaradii ilaahay amarkiisa ilaahay waa ii fudiyay alxamdulillah laakiinse waxay igu xireen shuruudo ah dhalinyaro tahay wax khaldan ayaad u socotaa camal ah dib 10 bari oo ganaax ay qateen 10 bari waan soo dhameystay waxay dhahaan maxaan ku dhahay 10 bari markaan soo dhameystaan saaka oo imdo rajada ugu xumeyd waxay ahayd inay dhahaan waxaan ku qabanayna ma lahan warqadaha caafimaadka ayaa ka khaldan isbitaalka aad ka goosatay gadaal ula laabo marka warqadaha caafimaadka isbitaalka ka goostay isbitaalka guud oo gagar waan ka goostay marka hadda maxaa ku qorshaa waxa ay qorshaday inaan ilaahay tala saarto ilaahay ba awood hayaan ilmahayga iskaga laabto waayo waqti badan iyo qarash badan buu igaga baabeen ilaa haddana wixii qabsoomayaan rajo xumo ahayn maalinba maalinta ka dambeysay ma ay jidho de gurigayga ilmahayga man iska aaday hooyaha Soomaaliyeed oo xanuunsan baahay wax ii suurto galayana ma ahan de awood rabbi ba iska lawlaal waaye waa fahmay dadka ku daawanaya bal waxa sharaxaad uga bilowdaa ilaa iyo hadda ilaa iyo markaad bilaawaysa hawshan meelaha madhay dabcan markaa fiisa dalbanaysay meesha aaday cidda u tagtay lacagta meelaha ku bixisay walaal marka hore waxaan u imaaday aniga marka hore odagayga ay waday wax badan ma tigin qof xanuunsan baa waxaan joogay hotel marka waxa way adii CID-da iyo maxaan ku dhahay maaliyadda iyo isbitaalka guud intaba waan tagnay marka waxa weeye walaal hadii ummadda Soomaaliyeed reer Puntland horta waxaan ka xusuusanaynaa inay ummadeeda shacabka ay si hagar baxsan oo cadaalad ku jiro oo diinta islaamka waafaqsan inay ugu shaqeeyaan markay ka soo hadho qofka caafimaadka u socda hadii Itoobiya laga diiday anaga Itoobiya waxba ma ku falayno caafimaad baan u soconaa hadda waxa weeye dadka caafimaadka u socda inay marka hore u digaan anaga dad islaam oo walaala oo diinta Nabi Maxamed haysta baynu nahay inay u digaan oo dhahay ininka wax inii suurta galaya ma lahan wadalkaasna ma gali ka dhaar caafimaad Allah ka bari inay dhahaan weeye hadda anaga wax ogeysiisan nooma ay sheegnin wax walba waa fudayd oo sahal weeye daqiiqadaad ku helisaan bay nagu dhaheen lacagta iga baxday ma tiro koobi kar aad bay u fara badan tahay ay wax laaluusha ma aana bixin dawladda waxaan uga baaqayaa horta rabbi subxaanahu wa ta'aala inay ka cabsadaan oo ilaahay waxa weeye aaminaan oo ummadooda Soomaaliya cadaalad ugu shaqeeyaan oo waxa weeye maxaan ku dhahay cadaalad hadii lagu shaqeeyo walaal wax xumaanaya ma lahan hadii laakiin musuqmaasuqnimo la sameeyo rabbi subxaanahu wa ta'aala waxba kama qarsoomo wax walba maxaan ku dhahay way u muuqdaan mana fiicina xaq darradu ummadda Soomaaliyeed ee qorraxda dhooban oo iska dhibaataysan maalin walba aan xitaa go'aan la siin qofka hadii la dhaho gurigaaga iskaga laabo waxba hadda maanta ma helis waa macquul laakiin 7 saac baan halka ku gaarnaa waxaan helnana ma lahan nasiib ma qofkii nooga yeesho naga galana cududaarkaas oo kale ku soo xiraan hadda aad bay meesha rajadeedu walaal u liidato